بسم الله الرحمن الرحيم fariinta kale aan diraya ayuu saalmaha waa fariin waxay tahay fariin aan u dirayo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay daafaha adduunka ka joogaan khaasatan ummadda Soomaaliyeed degan waxay Soomaalidu tiraahdaa qeyrkii ninkii loo xiro soo qoyso oo aan arkaynaa waxa dawladii weyneed ee Afghanistan ku dhacaya iyo Taliban waxay baday raggii lahaa annaga ayaa waxay soo daandaansadaa cirka iyo dhulka la duminayna oo cirka lagu soo duminayna dhulka la goynayna oo idinka wareegmayso halka ay dhigan maanta waan aragnaa innagana kuwaas un bayna leh waan annaga idin garab iyo gaashaan annaga gaawaha idin culayna annaga idin sidna wax kasta oo u baahan tihiin maalin maalmaha ka markay ka baxaan garabkeena sida iyagu sheeganayaan garab inoo yihiin garab inoo ma aha ee waa ina jibiyeen ay taasoo kaysaan ugu dhicin oo nimanka al-shabaab la yiraahdo maxay ummadii Soomaaliyeed dumiyay dhulka la jaray ummadda muslimka dhiigoodu hilaacahayo sidaan taasoo kale inaga noo soo gaadhin oo maalin maalmaha kamida aan la oranin waxa la qabsay tuule Hiblaayo magaal Hiblaayo caasimadii halkaan la marinin intaan ina soo gaadhin aynu u dhug lahaano aynu ka tabaabusheysano aynu nagu ciidankeena awoodina quwadeeda dhisano waxbaynan dal shisheeye oo ina gumeysanayo oranin hayna maxay tole awoodiisa aynu iyana ku xisaabtamo isaga ciidan noo tababaraya iyo isaga awood ina siinaya isaga garab iyo gaashan ka helaynaayeen aan marnaba ku soo xinaan ku soo toosinay inagoo ay mar walba ku soo xinaan ku soo toosanay ku tashano sidii aynu u noqon lahayn xuduud iyo awood aynu yeelan lahayn wax kasta cadawgana iskaga dhicin lahayn diinteena wanaagsan iyo dalkeena iyo dadkeena intaba mid walba u hanaan lahayn una meel marin lahayn aynan cid kale isku haleenin garab iyo gaashan aynan ka diin aynu ahaano dad iyagu kartidooda iyo awoodooda iyo wax Ilaahay si aqligooda la kaashado oo ka soo baxa kaalinta ay leeyihiin ee marnayna cindo isku haleenin waxa ku dhacaya dawladaha waaweyn arkaynano inaguna aynu ku waanay qaadano tusaale talan hayno ahaato. Assalaamu calaykum warahmatullahi